فيلم سوصاريه ودشي ودنك هولاند ee alifay filimkii lagu aflagaadeynay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo muslimiin sanadkii 2011 isla markaasina sanadkani kamid ahaa muslimiinta nasiibka u yeelatay inay gutaan waajibaadka xajka ayaa la sheegay in tan iyo maalintii uu xajka yimi aanay mar qura ilmihiisu ilmada ka qalalin mar wax laga weydiiyay isbedelka noloshiisa waxa uu sheegay inuu hadda ku nool yahay noloshiisii abid tii ugu quruxda badnayd isla markaasina ugu farxadda badnayd Mr Fandon waxa uu sheegay inuu dhawaan soo saari doono filim islaamiya oo ku tirtirayo xumaantii iyo waliba nacaybkii ka buuxay filimkiisii hore waxaana uu filimkani dambe ugu magac daray sayidka basharka oo uga jeedo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam Mr Arnon Fandon oo hadda magaciisa koowaad ka dhigtay Arnaud waxa uu sheegay in filimka uu soo wadaa uu yahay mid uu doonayo inuu si ficil ah ugu cudur daarto filimkiisii hore ee uu sameeyay intii aanu muslimiin ka hor Mr Arnaud oo la hadlayay wargeyska Al-Cukaasi ka soo baxay wadanka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay inuu islaamka ka helay shucuurtii abid noloshiisa Soomata maruu noloshiisa hore sifeeyana waxa uu ku tilmaamay sidii nin doonaya inuu hawada gacantiisa ku qabto amaba nolol khiyaaliya Mr Arnaud waxa uu sheegay inuu xajka u yimi si uu uga toobad keeno dambigu uu galay isla markaasina uu soo ducaysto in alla uu diinta ku sugo isagoo si kooban uga hadlaya sidii diinta islaamka ku soo galayna waxa uu yiri muddo waxa igu jiray xiise xoogan oo aan u qabo inaan wax ka barto islaamka waxaana uu tilmaamay inuu aad u akhriyo jiray kutub islaamka ka warramaysa kuwaas oo aakhirkiina saameyn ballaaran ku yeeshay go'aanada uu ku gaadhay inuu muslimo Mr Fandon oo hadda loogu magacaabi doono Mr Arnaud oo intii ka horeysay bishii 12 ee sanadkii 2011 intii aanu muslimiin waxa uu ahaan jiray siyaasi awood badan oo gudoomiye ku xigeen uu ahaa xildhibaanada ka soo baxay xisbiga BVV ee golaha deegaanka ee magaalada Hague ee caasimadda wadanka Holland isla markaasina waxa uu ahaa ninkii alifay filim dunida muslimka aad uga careysiyay ee sida foosha xun u aflagaadeeyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana uu ka yaabiyay bilowga sanadkii 2012 markii uu boggiisa Twitter-ka ku soo qoray shahaadada oo afka Carabiga ku qoran Mr Fandon oo 64 jir ah waxa uu markiiba ka baxay xisbigii uu ka tirsanaa ee Wilders Party oo si aad u nacab islaamka waxaana uu noqday xildhibaan madax banaan muslimnimada Fandon waxay noqotay mucjiso cabsi gelisay dad badan oo diinta islaamka wax ka sheegeeda ku degdega waxaana ay noqotay tusaale cad oo muujinaya sida ay diinta islaamka u tahay mid xaq ah